dhulkay tagaan dhib ma laha Puntland galmudug hirshabelle koonfur galbeed iyo Jubbaland meel waxay keeneen meel fog iyaga soo kaxayeen waxay keeneen meel dhexe mar waxaan siraahdaa ba waxay ku heshiiyeen ba ninkaan odayga madaxweynaha 4 sano ku qar waayay ummad u sheegay qof iyo cod hal mar ma oran karno hal ugu noqdo mid dad bane annaga soo dhaweeyeen idinku suga markii aan xaq isku tagnay waxaan yiri walaalayaalow qol gala idinku xal ii keena waxay ga maqnaayeen 7 saacadood way ugu soo noqdeen waxay ii keeneen heshiiskii ka soo baxay Samareeb 3 runtii waana ka dhaxay waxa laga yaabaa inay istaraatiijiya waxay ka ilaalinayaan nuclear inay hal mar ugu tuuraan nuclear option waxaan irisay ummadda uga gadaa hawshan ilaa 4 sano waxaan iibinaynay aan ummad u sheegaynay shuruuc u sameeynay ummadda Soomaaliyeed aan maalin iyo habeen baan u sheegaynay in dalku uu gali doono qof iyo cod waxay yiraahdeen rag kale meesha joogan ma ogide intaan qaado oo ummadaada intaan u sheeg Somaliland de awal bay gaar u taagneed markaana inaan waayo labadooda kaliya ma ahayn shantoodaba waa isla socdeen aan idin sheegay runtii aniga raggaan moodaa inay la socdeen iyaga ugu horeeyaba taasa wuxuu abuurtay shaki u baahan in la baaro ilaa iyagu ay xishoonayeen saddexdii hore labadaas nin yay rabeen inuu hadlaan idinku ala ay xaal hawshaasi runtii waxay ku dhamaatay wixii soo baxay waxaan idin sheegayaa marka sababta looga tanaasulay ama aniga aan u tanaasulay qof iyo cod aan uga tanaasulay waxa la isku hayo waxay tahay doorashada qof iyo codka ah aan ku barbaranno iyaguna waxay lahaayeen waqtigeeda lama gaarin aan heshiis siyaasadeed galno waxay yiraahdeen xaaladeeda laguma jiro hadda isaga fogow waxa ay soo baxday marka aniga shaqada la iidmaday aan u dhaartay la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horeysa isku hayo inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed markaas dawladnimo iyo doorasho laga hadli karaa laakiin haddii dawlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin anagu ma galayno maxaan ka shaqeynay waxaan ka shaqeynay kala qaybin yaan ka shaqeynay tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado uu soo farageliyo inaan anagu waxayna ha xumaato ha samaato anagu aan gaarno go'aankeeda mas'uuliyadeedana aan qaadano laakiin marnaba shisheeye inuu soo dhaxgelin oo soo kaay soo jijiidin taasna inaan ka fogaano waxay ii keentay marka inaan qaato tanaasulka marka maxaa yeelay inaan dalka isku hayaa muhiim ah marka ugu horeysa uusan kala tagin mudooyinkii aan soo marnay intay rabta ha haato ummadda Soomaaliyeed ma aha wax ka yimid wixii dhibaatada oo ka dhacay waxay ahayd wax kor looga keenay dalalkaas aan sheegayana danay leeyihiin waxay tahay annagu in aan isku mashquulsanahay xasilooni darro siyaasadeed ee haysato dagaalo dhexdeena ay ka socdaan shabaab maalin walba ay ummadooda waalahooda ay qarxinayaan ee leynayaan annagiina xasilooni darro siyaasadeed ee na dhex taalo intaas haday jirto dalalkaasi dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo security iyo ciidan ahaan waa nooga hormarayaan waana nooga tagayaan sababta waxay tahay intaan dib ku jirno xasilooni darro aan ku jirno beesha caalamku waa nala joogayaan dhaqaalaha sheegaysaan oo intooda badan aanan arag waa isticmaalayaan dhaqaalahaas kullina waxay soo marayaan dalalkaas soo marayaan dalalkaas markay soo maraan waxay isticmaalayaan bunuugtooda bangiyadooda waxay abuurayaan shaqooyin canshuuray ka qaadayaan ama fiisiya ka qaadayaan dhaqaalahaas yimid oo dalalkaas ku soo hormaray shaqo abuuray u tahay dadka u shaqeeya maxaan ku raahdaa NGO-yada dhanna waxay degan yihiin meelahaas degan yihiin guriye ka gateen ama guriye ka degan yihiin ama hoteelada ka degan yihiin lacagahaas haddaan xasilano waa joogsanayaan saas darteed dalalkaasi dan uguma jirto inaan anagu isfahmno oo aan heshiino oo Soomaaliya degto
waxay ku waayayaan billions of dollars ay ku waayayaan siyaasad ahaana waa sidaas marka anagu aan dhibaataysanahay waa inaan u tagno iyagii oo aan weydiisano inay heshiisiyaan inay adduunka tusaan Soomaaliya inay ka sareeyaan ka fiican yihiin ay ku dhex jiraan oo ay heshiisinayaan inay tusaan marka intaasna waxay ku helayaan leverage iyo ku helayaan adduunka ay uga helayaan intaasna waxa aan uga bixi karnaa anagoo si tunaasuna yaan uga bixi karnaa taas yaa ii cadaatay marka aniga in aan ogolaado shisheeyeen soo dhex galaan in xaaladii aan ku jirnay oo xasilooni darrada ahayd inaan ku jirno in marba meelna looga yeero oo la isku dayo in la heshiisiyo danaga heshiin karnaba intaan la soo dhex galin hasuu kay tagaan dib malaha laakiin waxaan u shaqeynaa maslaxadda shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyaguna runtii daacad iyo ka tahay wanaag iyo runtii maxaan ku raahdaa in dalkan hore loo mariyo runtii daacad iyo ka tahay laakiin waa kala fikrad duwan yahay waa normal wax caadi ah weyn la kala fikrad duwan